عليكم أصحابي بحرنا دمانتين قلب وناكسن صباح وناكسن هبين وناكسن دمانتين قولي قولنيو horta asxaabay ninkii wax dhacayo hadeer soo dhigay waa kana hadana qaybtiisii labaad mid kamid ah nimankii la soo qabtay kii bistoolada ayaa la soo qabtay nala dhageysta waxaan fariyaha u sheegay waa kana sarabkan halay sara asxaabtay lamaantiin aan la socono insha Allah biidnillaahi kariim waa kana fiirino marka kusoo gudbistay telefoonka 991 ama 991 oo gacantana lagu soo dhigay eedaysanihii mooto bajaajta uu waday iyo cadaymihii agabkii u dhacay shalay toole 29kii bishii 6aad ama bishii June 2021 ayaa laba dhalinyaro ah oo ku hubaysan bastoolad isla markaana waxay dhac u geysteen carwo lagu gado mobilada oo la oran jiray carwo ka iyaga oo carwadaas ka qaatay agab telefoonno ilaa 15 telefoon ah oo 15 kamid ay yihiin iPhone telefoonadaas isticmaalka agabka kale la xiriiray waadikii iska lahaa carwadaas iyo kaamirada CCTV-ga ama closed circuit camera oo qabatay eedeysanayaasha oo falka dhaca gacanta kula jira ayaa ku faafay baraha bulshada isla markaana la soo gaarsiiyay baraha ciidanka booliisku kula xiriiro dadweynaha iskaashi iyo dalab codsi iskaashi oo ka gudbisanay shacabka Soomaaliyeed ayaa noo fududeeyay in eedeysanayaashii aan gacanta ku soo dhigno waxa gacanta lagu hayaa hal eedeysane oo kamid ah eedeysanayaashii labada ahaa qaasatan eedeysanihii bastoolada uu isticmaalay wiilkii dhibanaha ayaa gacanta lagu soo dhigay kan kale tana saacadaha nagu soo fool ilaahay idinkiisaan oo kale ayaan ummadda u soo bandhigay subhanallah shaatiga nafsa shaatiga oo isticmaalayay wiilka markuu bastoolada nafsa shaatiga wata laakiin afkii aan xisnayn subhanallah alla ilaahay qabashadiisa dhawda ilaahay markuu ku ilaahay ku ceebeeyo oo ceebtaada inuu barnaamijka soo dhig ilaa halkaas publicada hal inaad wax ku dhacday oo qof masaakiin ku dhibaataysan aad u soo bareertay aad barnaamijka iskanta markaas ilaahay ceebtiisa barnaamijka soo dhigo waa kaas ninkii nimanka kale oo taagnaaya ma aysan ku jirin sababtoo ayaga falal kala loo haysta ayaga naftigooda wax dhacal ay geysteen ayaa lagu soo qabtay laakiin ninka falka geysay waa ninkii shaatiga nafsa shaatiga wata video wala soo fiirsan kana markaas fiirsan ka bacdigeed guul iyo gobonimo ilaa ciidanka Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay shaqo wanaagsan ah si halkiina ka wada insha Allah mid kasta oo public iskaan oo saas dadka u waxyeelaya ilaahay qabashadiisa soo dhowdahay ya qabashada ilaahay soo dhowdahay hadduu ilaahay inuu ku ceebeeyo raba ceebtaada ilaahay halkaas publicada iskaantay inaad linfaca wuxuu leeyahay xoog ku qaadataad rabtaa ilaahay waa kaas waa ku ceebeeyay ceebtaada ilaahay hadduu inuu asturo rabo ilaahay waa asturo insha Allah guul iyo gobonimo ilaahay dhammaantiin asxaabtay ku xirnay asxaabta kala ila dhageysta wax yar hadana dhiga doona gacanta lagu soo qaban doona isla maantay 30kii June 2021 waa dad kale oo dhaca kala duwan geystay laakiin anigu waxay ahayd ataagayga nimankii carwada mobilada ka dhacay in sharafnimadiisa la soo qabta taas ayaan reebay subhanallah ilaahay qabashadiisa waalida waa kaasa Allahu akbar xoolahooda xalaal aha 5 daqiiqo waa laga daba keen shalay dhaceen maanta waa la soo qabtay alxamdulillah guulaysan la ciidanka Soomaaliya insha Allah guuliyo gobonimo xogaa maxay haydeen meel dabal jooga insha Allah guuliyo gobonimo ay rajayna guulaysan insha Allah ciidanka Soomaaliyeed waa kaasa guuliyo gobonimo